Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa Soomaali Banaati Radio TV. Qodobada wararka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya guddiga doorashooyinka qaranka iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay doorashada soo socota. Taliya Odawaa oo saraakiil Mareykan ah kala shiray dagaalka Al-Shabaab. Waxaa kaloo aad ku dhegeysan doontaan xildhibaanada Galmudug oo kulan degdeg ah la isugu yeeray. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulamo ka wada magaalada Nairobi, iyo Waare oo shaaciyay xilliga ay dhacayso doorashooyinka Hirshabelle. Qodobadaas ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka inta uu socdo. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu dar corona iminkana kusoo dhawaada isagii oo fidsan. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo ku-xigeenka wakiilada qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku yeesheen kulan looga hadlayay arrimo dhowr ah. Kulankan ayaa waxa uu qayb ka ahaa kulamo joogto ah oo xog isweydaarsi ah lana xiriira doorashada qofka iyo codka ah ee qorsheynaysa 2020, waxaana inta badan diiradda lagu saarayaa sidii ugu macquulsan ee arrimaha doorashada. Sidoo kale waxaa kulanka qayb ka ahaa saaxiibada Soomaaliya iyo deeq-bixiyaasha caalamka, waxaana looga hadlay qodobo muhiim u ah doorashada ee ku jira sharciga doorashooyinka ee ku jirto matalaadda haweenka. Dhanka kale, Taliya Odawaa oo saraakiil Mareykan ah kala shiray dagaalka Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Generaal Odawaa Yuusuf Raagi oo booqasho ku tegay saldhigga Beledweyne ee guutada 16aad ee ciidamada Kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kulan xasaasi ah la qaatay saraakiisha iyo ciidamada. Taliyaha ayaa ku bogaadiyay guul oo uu sheegay in ciidamada ka soo hoyeen howlgalladii ugu dambeeyay oo ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiil guud Odawaa Yuusuf Raagi ayaa wuxuu bogaadiyay askarta iyo saraakiisha Kumaandooska xoogga dalka oo howlgallada ay ka dhanka ah Al-Shabaab ka wadaan gobollada dalka Soomaaliya. Sidoo kale, taliyaha ayaa halkaasi kulamo kula qaatay saraakiisha Mareykanka iyo AMISOM kuwaas oo looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Ugu dambeyntii, Generaal Odawaa ayaa wuxuu kormeer ku sameeyay dhammaan qeybaha ay ka kooban tahay xerada Beledweyne oo ah taliska guutada 16aad Kumaandooska xoogga dalka oo inta badan sameeyo howlgallo kala duwan. Waa hagaag. Dhanka kale, haddii aan eegno xildhibaanada Galmudug oo kulan degdeg ah la isugu yeeray. Guddoonka cusub ee baarlamaanka Galmudug ayaa xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi waxa uu isugu yeeray kulan degdeg ah oo dhacaya barqanimadii maanta. Xildhibaanada qaar ayaa u sheegay Soomaali Banaati Radio TV in fariin uga timid guddoonka baarlamaanka laguna wargeliyay in kulankaasi degdeg ah ay soo xaadiraan kana soo qayb galaan. Inkastoo ajandaha kulanka maanta ee baarlamaanka Galmudug la isugu yeeray aan la shaacin, ayaa wararka la helayo waxa ay sheegayaan in ay ka hadli doonaan xubnaha guddiga doorashada Galmudug ee muranka uu ka dhashay. Xaalka siyaasadeed ee Galmudug ee ku saleysan doorashada ayaa waxaa hareeyay khilaaf xooggan, waxaana hoggaanka Al-Sunna oo diidan sida wax ay u socdaan ay kulamo kala duwan ay ku leeyihiin xarunta Inji ee magaalada Dhuusamareeb. Waa hagaag daawadayaal, weli waxaa dhexda ugu jirnaa barnaamijkeeni Soomaali Banaati Radio TV. Geesta kale, haddii aan eegno madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay xilliga ay bilaabanayaan xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka maamulka iyo doorashada hoggaanka sare ee Hirshabelle. Waare oo Beledweyne kula kulmay safiirka dowladda Sweden ee Soomaaliya Ambassador Stephen Tillander ayaa kala hadlay arrimaha doorashooyinka, waxaana uu sheegay in xulista xildhibaanada Hirshabelle ay bilaaban doonto bisha Sebtembar, sidoo kalena doorashooyinka guud la gudageli doono bisha Oktoobar. Sidoo kale waxa uu sheegay in doorashada maamulka Hirshabelle ay waqtigeeda ku dhici doonto, isla markaasna maamulka Hirshabelle uu diyaar garoobi doono. Waa hagaag daawadayaal, dhegeystayaal, intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamij caynkan oo kale. Intaynu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaan Allah.